بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. daawada yar dhageystayaal meesha aad imika naga daawanaysaan ama naga dhageysanaysaan waa channelka Wargal Media. qodobada iyo wararka aan idin hayna waxa kamid ah tirada dadka uu soo ritay cudurka COVID-19 ee dalka Soomaaliya oo gaartay 60 ruux. gobolada dalka oo sidoo kale uu sii sahmaynayo cudurka COVID-19. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo booskii uu ka dhintay gudoomiyaha gobolka Nugaal ku bedelay shakhsi kale. ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre oo amar dul dhigay qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda. wararka dibadda aan idin hayno daawadayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka oo cambaareyn u saariyay cudurka coronavirus meesha uu ka soo askumay bilowgiisii. intaas waxay ahayd wararkeena kuwa ugu doorka roon. daawadayaal inta aan u galin faahfaahinta barnaamijka iyo wararka ha ka tagin channelka adigoo subscribe saarin videodana like saarin una share garan asxaabtaada. haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. dawladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in ay laabantay tirada dadka uu cudurka COVID-19 ku haleelay gudaha dalka oo ay haatan gaartay 60 qof. tiradaas ayaa aad sare ugu kacday kadib markii 24 saacadood ee la soo dhaafay la xaqiijiyay in 35 qof oo hor leh oo ku nool gudaha dalka laga helay xanuunkaasi, kuwaas ay dawladdu sheegtay inay ku jiraan 3 kiis oo laga helay Jamhuuriyadda Gooni-Sutaaga ee Somaliland. waa tiradii ugu badnayd ee maalin kaliya ay shaaciso dawladda Soomaaliya tan iyo markii la soo tabiyay kiiskii ugu horeeyay ee cudurka coronavirus. ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo shir gudoomiyay shir kulan ay yeesheen guddiga gaarka ah ee la dagaalanka cudurka coronavirus ayaa sheegay in uu faray wasiirada qorsheynta, gargaarka iyo arrimaha gudaha ee hay'adda dalka ka howlgala in ay ku wargeliyaan in ay u gargaaraan dadka danta yar ee dhibaatadu ka soo gaarayso saameynta COVID-19. ganacsatada Soomaaliya ayuu ra'iisul wasaaruhu ka codsaday inay qaybtooda ka qaataan kaalmaynta dadka nugul ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre. qalabka Soomaaliya ay haysato Soomaaliya waxaa yaala 22 xabo oo ventilator ah kuwaasoo laga wado qalabka neefta siiya bukaanada uu naqaska ku dhego ee qaba fayraska COVID-19, kuwaas oo badankooda ay leeyihiin isbitaallo gaar ah sida ilo xog ogaal ah aan ka helnay. waxay dawladda hirgelisay xarumo karantiil ah oo lagu hayo dadka looga shakiyay xanuunka sida ay Wargal Media ogaal ka heshay. isbitaalada haatan lagu daweeyo bukaanada uu ku dhacay coronavirus waxaa ka mid ah isbitaalka Martini. sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya waxay sheegtay in shaybaaro la geeyay Soomaaliya kuwaas oo lagu baaro kiisaska COVID-19. markii hore dawladda waxay baaritaan u soo diri jirtay dalka dariska ah oo jawaabta dib ugu celin jirtay. tallaabooyinka lagu xakameynayo coronavirus-ka ay dawladda Soomaaliya hirgelisay ayaa waxaa ka mid ah waxaa la hakiyay duulimaadyada tababaro la siinayo shaqaalaha caafimaadka. waxaa la xiray iskuulada iyo dugsiyada Qur'aanka. Muqdisho waxaa lagu soo rogay bandow habeenkii xalay ah. faafitaanka cudurka gudaha dalka. wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Fawziya Abikar waxay dhowaan sheegtay in xanuunka haatan uu ku faafayo gudaha dalka isla markaana laga helay dad aanan dalka ka safrin. waxaa muuqata in xanuunka uu si aayar ugu sii fidayo bulshada dhexdeeda maadaama laga helay dad aanan dhowaan aadin wax safar ah ama aanan xiriir la sameyn dadka la xaqiijiyay in cudurka laga helay ayay tiri dawladda.
kambiyoonkii la qaaday sambalkii la qaaday iyo maanta isku ahaayeen 55 ruux ayaa laga qaaday sambal 32 positive shalay iyo maanta kaliya marka lagu daro 25 shalay 57 ayay noqonaysaa iyo 3 case oo shalay Soomaalida waxay noqonaysaa marka tirada la isku daro 60 xaaladood oo coronavirus oo Soomaaliya ku jira dooriyada Allah u naxariisto laba way ka caafimaadeen inta kalena waxaan rajaynaynaa haddii Allah idmo caafimaad Ilaahay u siiyo sidaad la socotaan cudur faafka waxay ku jira si xawli ay u socdaan bulshada dad badan oo qabo oo aan soo raadsanin inay isbaaraan ay jiraan waxaan kula talinaynaa dadka in ay guryaha sideedaba waxaa la baaraa qof qandho ilaa iyo 38 ama ka badan inay qofka neef oksijiinka uu ka yaryahay neefta ay dhibayso iyo qofa labada calaamadood ugu horeysa waxaan kula talinaynaa labada calaamadood waa qandhada 38 iyo ka badan dhibayso oksijiinkiisu uu ka yaryahay 94 laba qofka inuu guriga joogo oo isdhowro haddii lacala xaaladiisa ay xoogaa isbedesho markaas la soo waco numbarkii uu soo waco ama isbitaalkana maaragtay la kaalmeeyo oo isbitaallada la geeyo haddii alle waxayna dadka mar labaad in guryaha la joogo la isdhowro la isxakameeyo gacmaha si fiican loo dhaqo ciriiriga la iska dhowro ilaahayna aan barino cudurkan nafadiisa iyo dadkiisa ilaahay inuu